xubnaha ka jooga golaha wasiirada xubnaha ka jooga golaha wakiilada dowladda Puntland hay'adaha caalamiga ah isimada nabadoonnada culimada haweenka guud ee Puntland waxaan ku salaamayaa salaamta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka hore hambaliyo waxaan halkaan uga hambaliyeynayaa haweenweynaha guud ee Puntland meel kasta ay joogaan gaar ahaan haweenka quruxda badan ee maanta isugu yimid holka golaha wakiilada dowladda Puntland ee xusaya maalinta haweenka Soomaaliyeed maalinta haweenka caalamiga waxay la tahay xusida maanta iyo hambalyadeeda ka sokow hanaanka maantu ay yeelan lahayd oo ay ku badnaan lahayd waxay ahaan lahayd in haweenku ay maanta khudbeeyaan in maanta dadku ay dhegaystaan haweenka oo keliya in maantay wasiirada golaha wakiilada bulshaweynta reer Puntland ay dhegaystaan haweenka inay idinku hadashaan maadaama maalintan ay tahay maalin aad idinku dareenkiina ku muujinaysaan maalin aad sheegaysaan waxa aad tabaysaan waxa idin qabsoomay waxa aad ku haminaysaan iyo meelaha aad doonaysaan inaad gaadhaan maadaama qaabkaas ay ku habbooneed arrintaasi maadaama aysan dhicin waxaan dareensiinayaa wasiiradda haweenka iyo cid walba oo xafladda noocan oo kale ah soo qabanqaabisay in hadda kadib aan ogaano sidii looga faa'iidaysan sida ugu habboon ee looga faa'iidaysan karo xafladahan oo kale ama munaasabadaha kale iyo sanadguurida leh ama xusida leh waxay tahay in idinka haween aad hadashaan oo haweenku u hadlo oo codka haweenka la maqlo maadaama halkan ay ka hadleen dad badan waxaan rabaa in si fiican aad u dareentaan hadalkan aan oranayo dad badan baa halkan ka hadlay wax kala duwan baa lagu hadlay aragtiyo kala duwan iyo falsafado kala duwan iyo siyaasado kala duwan ayay xambaarsanaayeen hay'adaha caalami ha ahaadaan dowladda ha ahaato ha ahaadaan bulshada qaybaheeda kala duwan buraanburadii iyo geeraradii iyo gabayadii iyo riwaayadihii dhammaan kulligood waxbay xambaarsan yihiin waxaasoo dhan waxay ku socdaan waxaasoo dhan ujeeddadoodu wax kale ma aha waxa lala hadlaayo waa maskaxdiina iyo maankiina waxa lala hadlaayo waxa weeye dareenkiina haddaba dareenkiina falceliska uu samaynayo wuxuu yahay muxuuse ka faa'iidayaa maxaa dad ugu jirtaa muxuusan mataqaanaa maxaasan dad ugu jirin saddex qodob baan rabaa inaan marka halkaa ku daro qodobka koowaad waxay tahay haweenka fariinta aan siinahayo maanta haweenku waxa weeye waa lafdhabarka bulshada waxyaabo badan bay yihiin in waxa lagu ammaano waxa weeye waxaa ka muhiimsan iyagu inay ogaadaan awoodda ilaahay uu siiyey inay ogaadaan xuquuqaha ilaahay uu siiyey inay ogaadaan xuquuqaha dastuurka uu siiyey inay ogaadaan dhaqankeena suuban waxa wanaagna uu siiyey inta suuban waxaa looga baahan yahay haweenka kow inay waxbarashada iyo aqoonta kor u qaadaan si waxa loogu shubaayo waxa saxa iyo waxa khaldan u kala fahmaan waxaa looga baahan yahay haweenka in garaadkooda garasho ay kor u qaadaan waxaa loo baahan yahay xirfadahooda shaqo inay bartaan oo kor u qaadaan haweenka waxaa looga baahan yahay jiil u dhimriya oo waxa ay raadinayaan u suurageliya inay soo saaraan hadday yihiin jiilkaasi waa kuwa madaxda noqon doona waa kuwa u arrimin doona waa kuwa golayaasha dowladda iyo golayaasha mataqaanaa kale ee dalka looga habiyo fadhin doona iyagaa laga rabaa inay isugu hiiliyaan waxayna isugu hiilin karaan haweenku waxa weeye inay diyaariyaan jiilkii u hiilin lahaa oo mataqaanaa garan lahaa culeyskooda iyo baahidooda hay-adaha caalamiga ah ku noqon maayo halkan waxyaabo badan bay ka sheegeen laakiin annaga waxbaa naga khuseeya waxa naga khuseeya waxay tahay inay waxa ay qabanahayaan ay noqdaan wax dumarka tayayntooda si toosa ula khuseeya
هبيت هاي برنامج جيدا أي طبعا هيان سيدا إلى اللي جوا وباهيها قوليها نحكي ونقالها إن لو سمعيو برنامج جو مالجرينه إن حفظ الله سمعيو إن شغابور الله سمعيو إن تريال عفمات الله سمعيو إن متقانا وأخبار شرع لعب العام الله قديم هذا الوقت هاي ما هي هي دولة يقرأ وزيرة يعيد كستو مسؤول دولة كتيسر هي المسؤولية باسارة مسؤولية باسارة وحيد هاي دستور كدولة بونتلان إن قلب كيس الشريعة صدرات كهلا حقوق هواينك يوم إن أي تهاي واجب سارة هي لا دولة إن أي سورة كريان هواين كنا رولان حقوقه دستورية أو شريعة الإسلام كنا يقولتي أو دستور كنا قري أو مثلا حياة عالمي ويقولين إن أي سورة كريان ما وقف فيها قرياش الدولة وعلى جنبه إن سيد الله هراء هذا موقع شيء إن أي دولة سورة كنيسو قبلوا إنه هران كوتوي هذا شغلة هذا ميراث الدول إمارة تبعين سياسة كلية ما هارنتو وقبل هارنتها سياسة إن أمانك يهيئها أمانك شغلة أي هيان سكارة إمارة قاضيان إن أمانك مثلا أمن هوينك وإلاليو والله إلاليو يبقى دعاء ومركز تصور الرفض إن هوينكم أي فسوه هيران عدالة إن معارك محكمة يهيئها عدالة أي فسوه هيران لولا السمايو قاب يسهل آية إن هوينك دعوه لإيكو قبان وإيكو فايستان إن دولتنا إن دولتنا وزيد موافقية وزيد وحبرشرة وحياتها معرفة وحلقة التلاوة وعلى الروزيد إيكو وحبرشرة فريقا أنه ما تباشي كتلاتو إن ماركتي إيكو وحبرشرة فريقا أنه ما كتلاتو وعلى الله يوضن حسوس وأمورها يعني يبدأوا لبرون أو كتيش وحبرشرة كتلها صار وقدق الهيدين مثل عقل عانا بلغات كذا اللي نكروا ولا اللي نكروا وعلى اللي نكروا وعلى اللي نكروا وزيراني سوق ويفهم إنسان سنة كسر اللي سوي ما تبان هلطمو وبعدين وعلى إلا سنة كان عليك أيام لفولنا هيا هذه الليلة كانت سنة كان وعرنا وزارتك قبلها إلى وحبرشرة وقدق تو العقلان كان رجل يدور تلاقيه إن المقدمية أبو الإنسان كأنه فرح سنة وعسنا شقوين بقرام ضمتا لكن حقيقة ما كان أركيت وأكف الشوض عينا الشيخته قدومية أبو الإنسان ما كان أنا كقبول إيرو الموت معي وعرفنا هريب الله شيء وعملنا من هذا هو يديس بقديس بالي وعلى الله إذن كنا ويستكتر حدود لنا إذن كنا ترادان وحن أمجا عليه وحن كنسكتا يرورنا هاي وح نصية قوة نصية شد نصية وحن أمجا عليه حقا رولنا هاي كنا ترادان أمجا وحن نوصل تجلسة ما دام أن هاي هيئة الدولة وقرين ليس حقوق الأعلى كارهان حقوق هواك هواك طبعا انت ماركت إلا لهيب صوعو انت ماركت النقول ضدك صوغن ما دام عنو قرينين وعرفنا إلى الموضوع بطان قرب إلى الهيب ماركت استناع استاقلو إلى هو الشقين رمي إلى النوم مركزا ماركت حقوق إلنا ماركت هليسان أنا عن استاقنا فوس عن ماركت قد فعلا سيدا أولي ما دام الوزيرة بسوعوي عمر هنا يا ماشا warka ugu dambeeya wasiirada oran doonta ballanqaadyada ay sanadkan idin haysana maaragtay iyada sheegi doonta laakiin waxaan ka rabaa hadduu ilaahay yidhaahdo maanta dhan waxaan idinku celcelinahay aamusa sanadka soo socda gabdha aamusa ma laha yaysan dhicin inuu halkaas soo istaago maaragtay ama nin ajnabi ha ahaado ama nin Soomaaliyeed uu yahay aanu Soomaaliyeed hadlayaa waa in ay idinku garataan inuu ninkan uu soo istaagay halkan inuu hadlo
markay isduu ilaahay yidhaahdo habdhaqanku waa inaan wax ka bedelnaa garaadka taladiisa aan qaadannaa oo muhimka ahayd aad baa u mahadsantihiin waxaan ku soo dhawaynayaa wasiiradda kusoo dhaweey